xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhoolatus ballaaran oo ay ku muujinayaan cududda iyo taageerada xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Gabiley ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ku soo bandhigeen dhoolatuska iyo taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka wadani. Somaliland ha noolaato qabyaaladu ha dhacdo barnaamijka xisbiga ku aadan horumarinta qoysaska ciidanka iyo carruurtooda sidii gudoomiyaha inoo sheegay waxa boqolkiiba 200 loo kordhiyo jaarooyinka ciidanka oo aabayaasha jiida jooga waxa la siin doonaa carruurtaas ka caafimaad iyo waxbarasho. waxaan ku ballan qaadayaa haddii aynu nahay reer Gabiley taageerayaasha halkan isugu soo baxay maaha soo guurta maaha soo guurtada waxa had iyo jeer wata kulmiye dadkan waa dadkii asalka ku ahaa Gabiley waxay taageertayeen oo lagu ballan qaadaynaa wadani inay soo saaraan Cabdiraxmaan waxa weeyaan xisbiga kulmiye wuu diiday danihii Gabiley ee ay ka mideysnaayeen ummadani waxa weeyaan maanta campaign-ka nooca uu wada dad u fiirsataan waxaad arkaysaan maanta jilib buu ugu furay dadkii xafiisadii inagu taa waynu ka mideysanahay xisbiga wadani ha guuleysto Somaliland ha guuleysato xisbiga wadani waxa uu u taagan yahay isbedel caafimaad qaba inuu wadanka ka sameeyo xisbiga kulmiye wuxuu noqday xisbi fadhiida hadduu soo noqdo mar dambe muuse biixi baa siiraayo bedelaya wax kale la qabanaya ma jiro kulmiye waa kulmiye marka waxaan leenahay kulmiye ha dhaco bedelu waxaan leenahay xisbiga wadani guushayaale xisbiga wadani qorshihiisa iyo ballanqaadkiisa waxa ku jira inuu gobolnimada Gabiley noqdo xisbiga suura geliyay ee ogolaaday ansixiyay taasaynu ku dooranaynaa qabyaalad la'aan baynu ku dooranaynaa qabannimaynu ku dooranaynaa diblomaasiyad iyo barnaamij siyaasi aynu ku dooranaynaa. وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسة سوم نيوز TV Gabiley.